sharcigu qof kasta wuu ka sarreeyaa waa qodobkeena ay ku saabsan tahay falladeena warku dawladnimadu waa heshiis ay iraadadooda ku wada dhisteen ummad meel ku wada nooli taasoo fulisa adeegyada asaasiga isla markaasna ummadaasi sharciga ay dhigteen ku dhaqda kuna ilaalisa qarannimadu waxay ka kooban tahay 3 tiir oo loogu talagalay inay si siman isu dheeli tiraan oo ay iskaabaan kuwaasoo kala ah xukuumadda oo waaxda fulinta golayaasha baarlamaanka oo waaxda sharci dejinta iyo garsoorka waxaana saddexdaasi laamoodba ay ku shaqeeyaan dastuurka iyo shuruucda kale ee ka farcantay haddaba maadaama oo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhisteen dawladnimo iyo qarannimo qiimo adag ku joogta oo danahooda u qabaanaysa uma baahna in qabyaalad lagu jahwareeriyo si loo weeqo midnimadooda iyo kaalintii ay ku garabgeli lahaayeen quweynta qarannimadooda iyo horumarinta dalkooda dib u dhismaya dawladnimada iyo qabyaaladu waa laba aan isqaadi karin oo ay tahay in shacbigu fiiro dheer u yeeshaan oo aanay ciidana gaar ah lihi ku beer laxawsan ajendayaal qabyaaladeed nasiib wanaag jamhuuriyadda Soomaaliland waxay maanta ku noolaanaysaa dawladnimo dimuqraadiya oo ku dhisan nidaamka asxaabta badan iyo xorriyatul qowlka bustawihiisu ka sarreeya dalal badan oo la ictiraafsan yahay waxaase daruuriya in aan la shaashayn dawladnimada cadowga badan leh ee qiimaha adag inagu taagan waxayaan darro ah in marka qof lagu soo eedeeyo dembi uu ardaa iyo qabiil debada geliyo si uu ugu galgasho eedaha loo haysto halkii ay u furnayd inuu sharciga hortiisa iska difaaco oo garnaqsigiisa bad ka soo dhigo xukuumadda Soomaaliland ee hogaamiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ka go'an inay xoogayso sidii sharcigu noqon lahaa mid qof kasta ka sarreeya darajo kasta iyo dabaqad wal oo uu muwaadinku ka tirsan yahay waxa bulshada la gudboon inay ka waantoobaan in caadifad iyo qabyaalad aan lagu jihayn oo nin dana lihi ku muraadsan hasaatee qofkii qof u hilinaya uu u qabto qareen maxkamadda horteeda ka difaaca faaladani waa mid ka turjumaysa siyaasadda xukuumadda waxaana soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta Soomaaliland